بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يلو عدي دبندبك الله كقادو عدي دن لا الله وفيه انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو intii dhimatay allah u naxariisto, waalidiinteena allah u naxariisto, annagana allah nooga daba naxariisto. dalka, diinta, dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadli doonaa laba qodob. qodobka koowaad, xabad joojintii dagaalkii bariga dhexe iyo wuxuu ku dambayn karo, xaaladaha hadda soo cusboonaaday iyo waxay ka bedeli karaan, heshiisyada loo fadhiyo iyo waxay ku dhammaan karaan, kelmadaan ka oranaya. warar xasaasiya oo soo baxay oo ku saabsan arrimahaas ama wax bedeli kara baan idiin qaada dhigi doonaa. qodobka labaad, xasan sheekh maxamuud iyo ficilo uu sameeyey ayaamihii ugu dambeeyey iyo jawaab ay ka bixiyeen mucaaradku oo shir ku qabsaday Nairobi iyo waxa ay ku biyo shuban karto, iyadana kelmadaan ka oranaya. waa marka koowaad, Iiraan ayaa waxaa loogu soo dhaweeyey Pakistan sidii dad guulaystay. waxaa loo arkaa, caalamku u arkaa Iiraan inay Ameerika ka adkaatay. dhanka dhaqaalahay uga adkaatay, dhanka militarigay uga adkaatay, wixii ay rabtay wax ka badan bay ka heshay. say ahayd dagaalka ka hor iyo siday hadda tahay waa kala duwan yihiin. waa arrinta keentay UN-tu inay ku darto ururka economic iyo social oo loo soo gaabiyo ECOSOC oo ah human rights iyo CBC baa la yidhaha. human rights iyo magaranaysaa bini aadamnimada wixii ku saabsan guddiga ka shaqeeya lagu daray. maraykanku dowladda keliya ee diiday buu noqday. nomination ba waa la magacaabay, waa la nominate gareeyey. nominationkaasna officially wuxuu ku dhammaadaa sida caadiga general assemblyga la geeyaa, loomana codeeyo, waa uun la baasiyaa. waxay ku tusaysaa qadiyadaas iyo qadiyadda ku xigtoo ah 10kii qodoboo ay Trump hordhigeen oo uu Trump aqbalay inay guulaysteen. horey baan idinku sheegay, guushu ma aha in Maraykanka ay burburiyaan ama ay Maraykanka laayaan ama eber ka dhigaan maaha. waa in Maraykanku wuxuu rabay uu waayo, regime change waa waaye. waatay isku dayeen inay nuclearkii xadaan enrichedka ahaa oo diyaarsanaa, waatay ku guulaysan waayeen oo diyaaradihii oo dhan laga daadiyey oo ay qiiqiil kaga baxeen. waatay isku dayeen ilaa Khomeini inay dileen oo madaxdii laayeen oo markaa dadka kiciyaan, waatay u shaqayn weyday. Hormuz xoog waatay dabcan inay ku furteen, waatay carareen oo iyagii la duqeeyo la eriyey. heshiiska Pakistan ka socda oo loo fadhiyo waxay soo dirsadeen dad khubaro ah, who is who ah, ra'iisul baarlamaankii, wasiirka arrimaha dibadda, taliyihii ciidanka, kii yacni who is who. dhanka kale madaxweynihii ku-xigeenkiisa JD Vance iyo xaaskiisii iyo laba nin oo Yahuuda oo midna uu Trump sodog iyo gabadhiisa uu qabo, Jared Kushner iyo Witkoff, oo haba yaraatee labaduba real estate dadka guryaha iyo aqalada iyo ka ganacsada oo waxba dawlad iyo business iyo dawlad iyo negotiation iyo waxba ka garanay soo dirsaday. waxay ku tusaysaa in laga adkaaday Ameerika. qodobada la weydiistay oo 10ka oo aqbalay waxaa ka mid ah Hormuz weligay annaga maamuleen, lacag baana lagu maraya, like it or not, waana la bilaabay. waxaa kaloo la bedelay lacagta la bixinayo, crypto baa loo bedelay. bal crypto kaale adigu cuna qabatee wadankeebay taallaa, marka la hubiyo oo la shubo baa markabka la sii deynaya. inta ka horeysa may halkii fuusto waa $1, halkii fuusto $1. 1000 fuusto haddaa wadid $1, milyan fuusto haddaa wadid $1 million. si easya maraakiibtu 20,000 oo waxay wadaan 2 milyan oo barmiil bay wadaan, $2 milyan oo baa laga qaadanaya each markab. tartiib wuu aqbalay. wuxuu aqbalay in freeze hantidoodii laga xanibay loo fasaxo. wuxuu aqbalay, waa heshiiska meesha lagu dhisayo oo hadda loo fadhiyo in la dhammaystiro. waxaa ka hor heshiiskaas Netanyahu waa hadlay, fartaanu ku haynaa riishadda, anytime baan xabadda bilaabaynaa. asaga dan uguma jirto. internationalka iyo inta ka soo horjeeda isaga siyaasadda waxay yiraahdeen ninkaanu dambigii wuxuu ka cararayaa
iyo fadeexadii corruptionka tuuganimada ahayd oo maxkamadeeda uu mar labaad dib u dhigay mar saddexaad mar afaraad hadda markii ugu dambeysay uu yiri Iran dagaalkeedan ku jira hal ii kaadi maadaama Iran dagaalkeeda haduu dhamaado de maxkamadii waa soo noqonaysa ninkii xabsi baa la dhigaya arintaas ka cararaya Trump iyo kooxdiisuna maxay ka cararayaan Epstein marka warka xasaasiga oo soo kordhay waxa weeye waxay aragteen islaantii uu qabay Trump oo soo istaagtay oo tiri ma aqoon Epstein heshiisna waa lahayn waxba xiriir nama dhex marin waxaa keenay iyadoo hadlaysa war ay sii daysay iyo tweetkeeda oo mar hore ayaa gabar la yiraahdo Amanda Ongaro oo Braziliana oo ay model wada ahaan jireen saaxiibna ahaayeen in ka badan 20 sano labadood ay saaxiib ahaayeen markii wadanka la keenay Americana 17 jir ahayd modeling lagu keenay laakiin advantage laga qaatay oo dhibaato loo geystay ayaa waxay u soo qortay wait ama sug bay tiri inta aad sidii chicken la qalay aad dhimanaysid warka isaga wuxuu soo baxay oo kale oo ka soo baxay Ingiriiska ayaa waxa la sameeyay qof eed lagu haysto ayaa waxa laga soo akhriyay meeshii laga soo saaray cod laga duubay Epstein iyo boqorka walaalkii oo sheekaysanaya oo labaduba sheegaya Melania gabadhaan markaa waxay tiri maxay ahayd gabadhaan waxay saaxiib lahayd naagtan labadooduba waxa ahaayeen dadkii advantage-ka ay ka qaateen groupkii Epstein xaggaas islandka iyo ka qaraaban jiray oo halkaa joogay gabadhu dhibaato badan kadib waxaa guursaday oo xoog ku guursaday iyadoo ah 17 jir baa waxaa guursaday xoog ku guursaday ma guursanay ana partner la noqday oo boyfriend u noqday nin dhowr iyo 30 jira oo hadda la yiraahdo Paolo Zamboli oo Talyaani asalkiisu ah oo ay Trump saaxiib yihiin oo Epstein ay saaxiib yihiin oo groupka circle-kaas kamid ah ninka isaga ah gabadha xoog buu ku kaxaystay sida cad oo muuqata nin macna la maaha xoog buu ku kaxaystay blackmailing iyo balaaya lagu sameeyay wiil bay isu dhaleen adigu aakhirkii waa kala boodeen 2025 sanadkii hadda la soo dhaafay baa gabadhu sharci waxay lahayd baa leeyahay green card hatta mar baa laga dhigay ambassador looga dhigay Grenada wadanka la yiraahdo inay UN ta ku matasho UN tana gabdhahaas iyo dadkaas Epstein waa ka buuxaan oo waad aragteen tii imaaraadka la soo qarxiyay oo human rights ka tirsanayd waad aragteen inay kamid ahayd tii lahayd walaashii baan ku keenay waxa ku xigtay oo la yaab leh gabadhu wiil bay u dhashay ninkan maxkamad bay isla mareen wiilkii bay u diiday ka qaaday waxa loo isticmaalay dawladda iyo awoodeeda 2025 hadda aakhirkii sanadka ayaa gabadhii ice baa xirtay waxa la yiri sharci ma lihid waa la xiray awal waliga sharci leh hatta ambassador iyo baa loo diray adduunkeeda wareegaysa oo iimaanaysa waxa la yiri bax waa la tarxiilay Brazil baa laga tuuray gabadhii cunugeediina waa laga haray iyadana waa la tarxiilay waxay tiri marka tweets istaba socday soo saartay waxay tiri intaas oo sano ayaa saaxiib ilaahay wiilkayga dhalashadiisa sanad kasta waad ii soo bogaadin jirtay hatta secret service ka noo soo diri jirtay qofka ugu horeeyo xiriirkaasaan lahayn naag xun baa noqotay dhibaatadeeda ka shaqeysay tarxiilkayga ka shaqeysay oo wadan ka soo qaadaya waxaan hayo waadna ogtahay waxaan hayo adiga iyo kan ku qaba way tiri arintaas waa Epsteinkii uu Trump uga cararay dagaalka Iran inuu galo 2 jeer oo soo laabatay waxaan u akhriyeynaa oo u sheegaynaa hadalka Netanyahu oo ah riishadan gacanta ku haya anytime baan bilaabaya Lubnaan kuma jirto wada hadalkii heshiiska Iran ma aqbalayno inay hub yeelato ujeedadeedu waxa weeye dagaalkii waa ku noqonaynaa si uu u khasbo Trump inuu dagaalka la galana waa in Epstein la soo saara labaduba marka waa laba noo dhibanayaala oo nafis siyaasadeed raadinaya dagaalkiina inay ku noqdaan raba laakiin either way dagaalka waa lagaga adkaaday waana ku jabeen adduunka waxay ku maamulaan oo ku cuna qabateeyaan
وبترو دولارك لعقتي بقى لقى فريز كرينيا وحي دولار وإني بنجيدا مريكن كمران لعق عن دولار بقى هين يوان iyo magaranaysa lacagtii bitcoin baa lagu kala iibsanaya kaale adigu marka dheeda u istaag lacagta China bangiyada China ku dhacaysa lacagta Iran bangiyada Iran bay ku dhacaysa hatta Ruushka waa ogolaaday lacagta China wax lagu kala iibsado BRICS baa mar dhow qaadan doonta yuan oo aqbali doonta Sacuudiga waa kamid Brazil waa kamid wadamada ugu badan ee soo saara shidaalka ayaa ka wada mid ah Ruushka kamid waxa kamid India iyo China waa wadamada gata iyo kuwa soo saara iyo wadamada adduunka nation ahaan ama tira ahaan iyo population ahaan ugu badan arintaasi waa arin khatar ah Trump wuxuu America galiyay dalaq wuxuu siiyay god aysan ka bixi karin hadaladiisa waxa kamid ah Iran propagandadii waa nagaga adkaatay waxa kaloo kamid ah hadaladiisi maraakiib marano faaro garaacaya baa u soo dhabaynaya dhanka Mareykanka haye maxay rabaan gas bay raadinay oil baan ka gadayna oo oilka uu maraakiibta ka buuxin doono mudadkiisa ka gado wata double-ka ay noqotay March alone 21% baa meesha ugu yar average-ka uu gaaskii dalacmay meelaha qaar koodna double buu dalacmay oo 100% buu kor aaday wuxuu kaloo yiri Obama ay sheegeen ciidamada Central Command-ka markab baa soo maray laba markab oo ciidan oo ay leeyihiin Mareykanku oo kuwa ay destroyer-ka yiraahdaan wax burburiyaas diyaarada xambaara ayaa dabcaynu soo aado Hormuz maadaama heshiis la maray buu dabcan intuu dhex maro inuu yiraahdo waa furiya waa lala hadlay waa loo digay digniin adag baa loo diray daroon baa lagu kiciyay markay digniintii inkreen baa daroon lagu kiciyay waxa leeyahay waa lagu qarxinayaa dad noqon labadiiba dib bay u noqdeen been bay marka sheegeen Bloomberg iyo qoraya iyo idaacadahooda laba markab oo Mareykanku leeyihiin baa maray marinka Hormuz miino kama aysan helin wax miino ah intay sii mareen bay haddana soo mareen reer mudug waxay yiraahdaan markaas oo kale fa badana horta ma ku dhacdaa waa loo digay way carareen warka dhabta ah sida weey waxa sheegay official Mareykan ah oo yiri magacayga hala qariyo oo madaxaba u sheegay waa soo cararnay dib baan soo cararnay dib u garasho xeer dagaal ayaa ka dhacday isku soo duuduubo dagaalkii in dib loogu noqdo ka fursan mayso corruption-ka Netanyahu iyo Epstein oo isagu soo kiciyay isaga iskale Epstein iyo iskale codadkan la leeyahay Ingiriiska laga dhageystay cidda kaliya waxay soo sii deyn kartaa waa dawladda Israa'iil isagana madax ka markii ay jiq ku noqoto waa inuu meel kale laga buskiciyaa dagaalka dhan sababta loo galay